waxaan ka hadlaynaa hadda initiative cusub oo sanadahan dambe oo ay ka shaqeynayeen SATG iyo Filson. marka initiative-kaas cusub waxaa la dhahaa hybrid seed production. marka hybridka waxa waaye laba variety ama laba nooc oo abuur ah oo la isku dhafay oo ku soo saaray hybrid. marka hybridkaas ayaa abuur ahaan loo isticmaalayaa oo loo qaadanayaa beeraleyda hybridkaas ayay beeranayaan. marka su'aal oo ka soo bixi karo oo wuxuu yahay oo hybridka muxuu kaga duwan yahay noocyada hadda abuurada ay beeraleyda beertaan. marka hybridka wuxuu kaga duwan yahay waxa waaye marka hore wuxuu ku siinayaa abuur ama markuu soo go'ayo ama markaa soo baxayo wax oo siman ayuu ku siinayaa. badanaana hybridka markii la tijaabiyo wuxuu leeyahay wax la yiraahdo heterosis ama wax soo saar badan oo labada markii la isku dhafo marka labada waarid oo markaa la isku dhafayo oo la xulanayaba waxay ku beesgariysan yihiin inay ahaadaan kuwa tayo leh. labadaas tayo markay isku darsamaan waxa waaye ilmo oo tayo leh ayaa ku soo baxaya ama abuur tayo leh ayaa ku soo baxaya. marka kaasuu kaga duwan yahay wax soo saarkiisana badanaaba waa ka badan yahay waxa oo beeraleyda caadiga ay isticmaalayaan ama loo yaqaano variety. haddii one of the parents ama one oo yani varietieska oo aad isku dhafaysid uu awood u leeyahay inuu u adkaysi cudur iyo cayayaan iyo abaaro hadduu leeyahay inay F1 hybridka uu lahaado tayadaas mid la mid ah inuu lahaado oo mataqaanaa tayadaas uu la soo baxo. marka SATG ayadoo ay wada shaqeyn ka dhaxeeyaan company-ga Filson hadda waxay soo saareen ama ay ka shaqeynayaan oo stage-kii ugu dambeeyay ay marayaan F1 hybrid oo ay ugu magac dareen Simon. marka suu ku imaaday hybridkaas Simon wuxuu ku imaaday laba varieties oo ay ka heleen international center oo la yiraahdo CIMMYT. F1 hybridkiisa ayaa dhowr xilli lagu tijaabiyey Soomaaliya waxaana nooga soo baxday variety cusub oo 30% ka wax soo saar badan yahay localka. adduunka oo dhan waa la isticmaalaa hybridka ma aha wax oo ku cusub Soomaaliya. adduumada horumareen waa isticmaalaan hybrid seed ma aha GMO ma aha waxaa la dhahaa conventional breeding. yani breeding-kan oo caadiga ah oo isku dhafka caadi loo sameeyo ayaa loo sameeyaa ayagoon wax kale oo bannaanka aan laga soo qaadayn aan laga keenaynin ayaa lagu sameeyaa. marka tan hadda aan sheegayno F1 hybrid iyo variety seed production wuxuu isugu biishuurayaa seed systemka oo Soomaali oo hadda dhismi doono oo shaqeyn doono. sababta waxa waaye F1 hybrid waa jiraa varieties-na waa jiraa wax land race la dhahayna waa jiraa. masagada iyo markii laga hadlaayo iyo digirada waxay u badan yihiin land races. sababta waxa waaye waa wax weligeed soo jireen. laakiin markii la qurxiyo ama wax lagu daro ama la hormariyo oo magacna loo sameeyo sumadna lahaado varieties ayuu u baxayaa. marka aad ka baxdidna variety waxaad samayn kartaa isku dhaf oo laba nooc ah oo hybrid u noqonaya. marka sidaas ayay u kala baxsan yihiin. marka impactiga oo productionka uu waddanka ku yeelanayo badanaa waxa waaye aad u badnaana. maana hadda adduunweynaha waxaa ognahay badanaa waxaa la isticmaalaa hybrid potential kana marka aragtid waxa anaga aan soo saarno at least 10 jibaar ayaa laga soo saaraa adduunka. marka that is our goal inaan mataqaanaa at least wax soo saarkii inaan 2 jibaar 3 jibaar 4 jibaar inaan ka dhigno. laakiin habkii loo isticmaali lahaa iyo jidkii loo mari lahaa inaan u marno waa ku qasbanna. sababta waxa waaye haddii sidaydan ku jooga haddaad tirahdid macnaa wax ma soo kordhino hayst. laakiin technology-ga oo adduunka ka jiro inaad la jaan qaadid waa wax oo mataqaanaa ku yaallo waaye as researcher inaad la jaan qaadid. dadkan beeraleydana waxay kaa sugayaan wax soo saar fiican inaad la samaysid waa lagu qasban yahay.